وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتي صباح وتاي صباح وناكسن إنتي همين وتنهمين وناكسن إن كل معنا أي إتهاي وهاك محرم أن كهذا قلمدو أو آد تقال وسدح بري وسكال جوكسي لهين يو أرركا اسكو مقعبايا أهل الصنو ونبديتكا marka saddex biri meydka iyo dhaawac ayaa isdul saaranayay waa nasiib darro in galmudug oo saacada dagaal ka bilowdo oo dad weyl isu qabiila oo walaalaa oo ehela ay ku dagaalamaan aad iyo aad ayaan ugu xumahay. culumadii Soomaaliyeed haday rabaan inay dhiig daadiyaan oo ay ku soo duulaan wadamo nabdoon oo dawlad ka jirto oo maamul leh haddana ay xabad ka dhex bilaabaan oo ay yiraahdeen xabad ayaan xuduunaynaa waligeey anuu maarag culummo sidaas u dhaqmaya waxaan leeyahay in laga duceysto ay mudanta taas. dadka ku dagaalamaya Guriceel waa hal qabiil waaye. Guriceel waxaa la rabay waxaan ku mudaysan dowladda Guriceel maamulka qorqor 11 qabiil ayaan ku mudaysan markii waxa la rabay al sunno oo hal qabiila oo hal ka soo jeeda sida hadda ma al sunno horta waa dhowr qabiil laakiin hal qabiil waayo hadda wax dhib ka wada oo hogaaminaya waxaan la rabay in ay 11 kaas ka fariistaan oo yiraahdeen ahlu sunni waxa uu diinaga joojiya meeshan 11 qabiil ayaa ku mudaysan maamulkan waa loo soo dulqaatay waa loo soo samray hadda waxa ku istaagay waa maamul arduna marka joojiya waxa wadiin waxa meesha iga muuqata habacsanaan waagi horena qorqor habacsanaan ayuu muujiyay arrimihiisa arrimo ahayn ayuu galay oo Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo beela ay ku daawriyay waxa loo baahnayn hadda si ayuu arka runta waxay hadda ila muuqata hadaan fiirsho qaabka iyo hadda qaabka loo dhaqmayo iyo qaabka qorqor u soo adeeg inuu ka qaaday adeeg inuu ka qaado hadda weerarkan ay hawsul ku soo duushay oo samardan u laabanay wareegii uu ku raxsan jiray meelaha Turkiga iyo Soomaaliya ay hadda ila muuqata taas qorqor adeeg ayuu ku qaadaya qorqor ilbaxnimo iyo waa'ignimo ay hadda uu siyaasada dagaalkan iyo sida wax loo maamulo ma garateen waxaan leeyahay marka raggan macallin maxamuud iyo shaqashaarka hogaaminaya ahlu sunno horta waxaan leeyahay horta dadkiini waa baabi'ideen ahlu sunnoy dadkiini waa baabi'ideen Guriceel meel uu dhageysanayay ninka la qorqor ninka qooriyaan ihina shaqashaakir wuxuu lahaay waxaan ku dhashay Guriceel oo ana ka soo jeeda Guriceel hadda ku dhalatay adoo ku dhaltay maana iska malihid dad ayaa meesha kula degan oo kula wadaaga 11 qabiil ayaa kula jirta maamulkaas dhaqaalaha iyo waxa dawladdaas maamul goboleedkaas galmudug ka soo xaroodana ma dhaafaan Guriceel iyo Dhuusamareeb haddaan nin wax og tahay ama diin haddii ay ku isha wax ku cabiraya waxa la rabaa inaad dadka u turto waalay macallin maxamuud iyo shaakirow dadkii waa baabi'iseen dadkii waa dhamaaday maanta nimanka raayaan la sheegaysan Allah inaga raayaan la maalintood waxa maqlay soo raayaan la maanta adag u dhameeyay wax raayaan la maanta ka nool ma jiraan waxa waaye maristoodii iyo hooyooyinkoodii iyo caruurtoodii odayaashoodii waxay ku dhimanayaan duurka roob iyo gaaj ayaa ku leynaysa yaarta inaa xukunto marka macalimiinta shaakir Allah yaarta inaa xukuntiin marka bal ii sheega migeedaha ayaa xukumaysi mase isbaaro ayaa aan dhigatiin sida ila muuqata isbaaro ayaa aan dhigatiin 22 sano ayaa isbaaro soo dhiganeyseen Guriceel ma garateen marka maanta isbaaro labaad dhigan baysiin meesha maamul ayaa ka jira anigu hadda ma eedeynayo maamulka galmudug iyo dawladda ku meelgaarka waxaan u eedeynayn dawladdu hadii la soo weeraro waxa iska difaacaysa waa qasab inay wax iska difaacdo dawladdu gacnaha laaba mayso dawladdu 3 asbuuc bil ku dhawaad ay in la leeso ay leedahay war ka jooga waxaan aan wada hadalno wada hal waa diiday marka waga dhactana war hal ahada marka intaasoo ayaa lagu hadlayay Sheekh Shaakirow
wadahan la waadido odayaashii waa soo celis marka in gacan la saa kaa qabto ayay tagtay dagaalkan adaa bilaabay ciidamada dowladdu geesaha magaalada ay ku sugnaayeen adaa ku soo bilaabay hoobiyaal iyo ugaarsi marka in iska difaac waa qasab wuxuu waa dowlad maahan shacab marka waxaan in leeyahay horta aad iyo aad ayay u mangaabantiin haddaad tihiin culimo isu sheega ahlu sunno waxa waaye maamulka Puntlandna hub iyo wuxuu u soo dhiibay iyo gurmad maanta in siya laakiin asaga ayaa ka shaqeeya gurmadka iyo hubka uu siiyay waayo waxa uu u gurmaaya oo hubka uu siinaya waa dad isku qabayla marka dagaalka wuu dhamaanaya waxaan la hadlayaa wadaadka macal barro Puntland hogaansha magaciisa wuxuu danbi u ahaa gilaas oo ay dani marka waa ogtahay Soomaaliya waxay tahay nin lagadankeeda yaqaan suu ku dibri ma waayo marka majartoon waad ogtihiin habargii ligdikiina waa taqaanaa haddayse hadda ayuu dagaalkan isku jirto xaqna weerin ayaana sibileedihiin adinku hadda wax maxaad ku faanaysiin doorasho ayaa ka bilaabay hal iyo coda doorashadas waxa ka damay doona dagaal iyo rafaad waayo dandaasi adinka bilaabay adinka maamul jira soo hubiyay ku soo hubiyay maamul niman jabhada marka taa waxa uu gudmayaa majarteen aqli xumadooda waxay rabaan taas inay ku badbaadaan maysiin insha Allah intaas ayaan u gudbayaa waa ogtiin saw cabaadiin markii dagaalka marka dagaalka shii habargiir taas ku madimaysiin taas ku seexda waxba ha doordoorno waa isku kulay taas waxa weey ii sheeg maalinteedii aragtideeda leedahay haya maanta awoodda inaan saaro ahlu sunno iyo maamulka galmudug waxaan leeyahay ahlu sunno la iska dhacsho la dagaalamo hala soo afjaro haday qaato 3 bil ahlu sunno shabaab wax ma dhaamaan waa shabaab ayaa ka daranba maanta waxaan ku dhaaranayaa ahlu sunno in shabaab ka daran tahay lama arag shabaab 3 bil ka soo horjeeda dowladda lama arag yaa arkay ii sheega 3 bil shabaab la dagaalamaya dowlad iyo ciidamadooda yaa arkay shabaabku waxay soo wareen waa carraa ahlu sunno shabaab way ka daran tahay macluumaad waxba la xas daahir oo yiri ahlu sunno waa shabaab waa run waadkaas aad u cabiray maanta halkaas waxaan ka arkaa in meeshii al-shabaabka laga dagaalayay ahlu sunno laga dagaalamo awood la suu geeyo ahlu sunno waxa weeye waa nabadiid wada hadalna ma ogola markii la maxaribtina waadkii wuxuu leeyahay macallin maxamuud wax uu ka hadlay ma yaqaan sheekh shaark والشيخ محمد علي معلمه محمد nin Puntland ku nool Puntland u carolkaas u jooga horta waxaan leeyahay dagaalku dhamaanaya dowladana waxa uu dardaarmaya iyo galmudug waxa weey magaalada Gurceel waa magaalo ay yaqaaniin nimankan ahlu sunno qaabka lagu dagaalamo ma garateen gudaha u galnay bandaanka jooga waxa magaaladaas ayaan gudaha u gasheen waa lagu baabash ciidamada dowladda waxa magaalada gudaha yaa loo geli geesaha laga godonsho magaalaasi waa magaalo ku dhaxtaal dhul duura nimankaasi irday ka soo galaan qaabka u dagaalamay yaqaanin marka horta taas experience waa kiisiin waxa maaynayaa maalmaha labadan dagaal oo ugu dhameeyay hadda oo bariyahan dambe dhacay dagaal guuriga ku jabtay kan hadda bariyahan soo hadda qasaarada waa yariyahay ala sunna ku jabtay marka على سنة وظهر دم اللي لقي لما يو عن برا يا الغوقبنا يا وحنا ليه على سنة أرتن ما يو نمك الدجال ما يا وبس سياسي ما يقانين واحد سياسي يقان لما أركو يقاب دجال يقاب لو دجال ما يقانين تصاير أنا سنة يا مجال اللي هو شو معنا يفتر إذا ماذا ما نكسر معنا يان على سنة هاللودر إذا مو هالكاس dabarjibin ku sameey oo meeshaas diga oo guusho diga nimanka barraxan halka diga iyo dirta dawladdu waa ku jiraan waxa waaye ciidamada ugu badan kun askari qoor u dir halkaas adaan ku hadlaya dabarjibin waa inaad ilaa cabad waaq ilaa huursho waa inaad go'doomisaa sheekhaas si fudud ayaa lagu qaban karaa dhabarka ayaa laga qaban karaa waayo ninku meeshu gudmiga hadaad ka qabato asaga ay qabanaysaa halkaas hadaad ciidamo rili oo dagaal gelin oo dabarjibina dhigtiin oo isugu jira infantry iyo hadalku ii sheeg
halkaa dhigtiin oo xoog leh oo hubkooda baabaysho wataa wallahi Sheekh Shaafir maalin ayaa lagu qaban karaa dagaal dadka ha baabenina xeelad ku dagaalama waxa waaye Sheekh Shaafir dhabarjimaha lagu sameeyay hadduu yahay jidta leebana xataa meel mar male dhabarkaas taaga soo qabtay meeshu sheegay hal qabto ma qabateen saas ay ila ag tahay dagaalka Gurceel dagaalka falfal lagu kala guuleysimay nimanka dhufisi ku jiraan iyo saray saareen waxa waaye dagaalka duurka laga dagaalamo hursho iyo hal godoonsho iyo caqdo hal godoonsho halkaas hal dego 2,000 oo ciidan u tirin hataa ciidamada meesha waa 5,000 oo ciidan waa maqlay ciidamada meesha jooga oo rabcad iyo isugu jira nimanka la dhigi jiray ii sheeg gorgor iyo balaayijiyo isugu jiraan gorgor iyo rabcad horta dhabarka loo diro hursho waa in deegaanka samaystaan ciidamada galmudug oo ayaguna meesha jooga maamulka waa in meeshan Gurceel iyo meeshan nimanka ay ka hor dagaalamaan dagaalka saacad ay ku dhamaanaya laakiin hadda tiraan waa ka soo horjeedina maalin kasta saas isku xabadayna kafol wax hagaagaya lama arko marka nimankaas waxaan leeyahay la soo afjiro hadduu bil qaato loo bil qaataba waxa weeye nimankaas waa ka daran maanta ayaa shabaab ka daran waa niman nabadiida way shabaabku waxay u direen in sheegaya tusaale yar in siinaya shabaabku waxa weeye way dagaalamaan way cararaan kuwan laakiin waa niman dhufaysiyo qotay ka soo horjeedaan meel uma socdaan dadka duurka jooga oo maatadan waxa leeyahay loo gurmado waxa way dadka Soomaaliyeed yaa kala soo loo gurmad loo sameeyo dal ida guraha looga sameeyo waxaan leeyahay waxa way dadkaas waa dad baahan waxa way dhaqaale wahaysatiin waxa way gurmad sameeyo dadka soo daadgo dadka duurka soo qaadiin meelaha magaalooyinka la geeyo duurka waxba yaal gudigan dadka baabuur u dira soo qaada dadka waxa maqlay gabdho ku dhalaa meesha islaamka ku dhalaa meesha iyo dad badan waxa way ka soo aruur dadka meesha dadka duurka yaal gudigan aan u aqaana meeshaas oo roob ku helay waxba ka harimayaan dadku way baaba'ayaan marka magaalada Gurceel waa magaalo go'doon ku jirta shacabka waxa leeyahay idinku dhinaca magaalooyinka oo magaalooyinka soo aada marka sidaas aan leeyahay waxaan leeyahay dagaalkaas in la soo afjiro waaye hadduu qaato bil iyo bil qaataba nimankan waxa way meel uma socdaan nimankaas waxay ku dhaarteen in ay meeshaas ay ku baaba'aan ama ay qabsadaan marka anu dadka ka sheegayo nimankan awsuno qabiil male waxa ma lahayd Puntland maalinta waxa uu yimaado isha gurmad qaybta kale oo galmudug ayadana oo koonfurta waxa uu yimaado gurmad nimankan dareed iyo nimankan meeshan joogan ayaan gurmad ugu yimaada waxaan leeyahay waxaas hal loo gooyo ciidamo gurmadaha loo diro meeshaas hursho iyo dhinacaas iyo meel kasta wadda ka soo gasho Gurceel dagaalkan soo afjiro ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay uu dadka islaamka kala badbaasho marka aad iyo aad aan salaamaya salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa nabadiir